madashan maanta dhiigga iyo dhacaba lagaga heshiinayaa ee safgaradka laga gaaray waxay halhay markhaati u tahay halgankii nabadgelyada ee reer Sanaag caanka ku ahaayeen xilliyadii 1993 nabadgelyadii laga unkay Ceerigaabo baa Somaliland Hargeysa iyo Boorama gaadhay isla maantana waxaan rajaynaynaa Harti iyo Isaaq nabada u dhantihiin oo Ceerigaabo ka bilaabanta inay gaadho haddii alla idmo Somaliland oo dhan oo beelaha Somaliland oo dhan gacanta is qabsadaan taana reer Sanaag baa maanta u noqonaya maxaan ku raahdaa horkacaya oo u noqonaya maxaan ku raahdaa kuwa bilaaba horeyn waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa waayeelka labada dhinac ee Naaleeye Axmed iyo beesha Muuse Abakar oo runtii shaqo wanaagsan oo amniga khusaysa soo qabtay shalay toole waxaanu wareejinay gaari iyo fur iyo lacag maantana waxaanu wareejinaynaa gaari weyn oo raran oo ay sabab u ahaayeen dilalkii ka dhacay deegaanka Boodley Ilaahay mahadii waayeelku si fiican bay u soo dhirindhiriyeen in muddo abaanu hawshan wadnay cid walba ka soo shaqaysana waan uga mahadnaqaynaa nabadgelyada wanaagsan iyo sida fiican ee quruxda badan ee shaqada u soo qabteen waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan waayeelka guud ahaan gobolka Sanaag waa gobol qabiilo badan oo kala duwan deegaan waxa bays u ah nabadgelyada lagu wada joogi karaa lagu noolaan karaa madashani markhaati waxay ka tahay dhaqanka reer Ceerigaabo iyo dhaqanka guud ahaan bulshada gobolka Sanaag waxay dhaqan u leeyihiin wixii kala dhex gala ama dhaca haday dhacaan ama dilal haday dhacaan in nabadgelyo lagaga heshiiyaa bay dhaqan u leeyihiin tiibaa dhacday alxamdulillah rabbil caalamiin waayeelka iyo cid walba ka shaqaysana waa uga mahadnaqaynaa waxaanu sidoo kale uga mahadnaqaynaa gobolka Sanaag gudidiisa nabadgelyada waxa aad ula shaqeeyay waayeel nabadgelyada kala shaqeeya oo koow ka yahay Maxamed Cabdi Maalig oo gudoomiye u ah daadayo gudoomiye ku xigeenka labaada dhammaantood si qurux badan oo wanaagsan bay u shaqeeyaan madashan maanta dhiigga iyo dhacaba lagaga heshiinayaa ee safgaradka laga gaaray waxay halhay markhaati u tahay halgankii nabadgelyada ee reer Sanaag caanka ku ahaayeen xilliyadii 1993 nabadgelyadii laga unkay Ceerigaabo baa Somaliland Hargeysa iyo Boorama gaadhay isla maantana waxaan rajaynaynaa Harti iyo Isaaq nabada u dhantihiin oo Ceerigaabo ka bilaabanta inay gaadho haddii alla idmo Somaliland oo dhan oo beelaha Somaliland oo dhan gacanta is qabsadaan taana reer Sanaag baa maanta u noqonaya maxaan ku raahdaa horkacaya oo u noqonaya maxaan ku raahdaa kuwa bilaaba dhaqan gaar ah bay leeyihiin oo ka duwan dhaqamada gobolada kale leeyihiin waa dad ku mashquulsan inay isdhexgalkooda iyo maxaan ku raahdaa isu furankoodu aan mar kaliya kala xidhnaan waa dad si gaar ah mutadawiciin ugu ah inay ka shaqeeyaan arrimaha nabadgelyada iyo arrimaha maxaan ku raahdaa fahanka ummadda waan u mahadnaqaynaa waayeelka ay ugu horeeyaan Chief Caaqil Carab iyo Chief Caaqil Axmed Warsangeli iyo Chief Caaqil Lixlo isaga laftiisu iminka naga maqan oo arrinta ka soo shaqeeyay waayeelkii ka soo shaqeeyay ahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mid dheer iyo mid fogba arrintaana si nabadgelyo ah baa lagu kala wareegay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh